iyadoo muddo badan magaalada Muqdisho uu ku xanuunsanayay fanaanka Cabdi Tahliil Warsame xaaladiisa caafimaadna wax looga qaban waayay gudaha dalka ayaa maanta waxa ku booqday hoygiisa uu ka degan yahay magaalada Muqdisho wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ay weheliyaan Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure iyo Samafale Cabdimaalik Muuse Aldoon si ay u ogaadaan xaaladda uu ku sugan yahay fanaanka iyadoona ay sheegeen in dhawaan loo qaadi doono wadanka Hindiya halkaasi oo caafimaadkiisa wax laga soo qaban doono Samafale Cabdimaalik Muuse Aldoon oo ah gudoomiyaha ololaha kaalmee kuwan oo ah urur samafal ayaa sheegay in lacago gaaraya $21,000 ay u hayaan fanaanka dibadana loo qaadi doono si caafimaadkiisa wax looga qabto isagoona u mahadceliyay dadkii lacagaha soo dhiibay inaanu Cabdi Tahliil u hayno lacag dhan $22,000 lacagtaas hore ayaan u shaacinay meelaha ay naga soo gaadhay iyo ciddii soo dirtay Cabdi Tahliil dad samafalayaal oo Soomaaliyeed oo xaalka Cabdi Tahliil markii ay daawadeen aanu soo bandhignay ka naxay ayaa u soo diray lacagahan waxaana ugu tala galeen in Cabdi Tahliil Warsame caafimaadkiisa lagu daryeelo Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo isna goobta ka hadlay ayaa Ilaahay uga bariyay fanaanka inuu caafimaad taam ah siiyo intii ay awoodaan caafimaadkiisa ay wax ka qaban doonaan غير caafimaad Allah siiya Cabdi Tahliil Warsame waa haliyay ummadda Soomaaliyeed magac weyn ku leh hase yeeshee la dhihi karo ma helin abaalkii uu ku lahay ummadda marka ummadda Soomaaliyeed lacagta ay soo aruurisay ee $22,000 ah ee maanta la idiin sheegay waxaan rabnaa in loogu qaado caafimaad dibadda ah ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa u mahadcelisay dadkii lacagaha soo dhiibay iyo ururka samafal ee kaalmee kuwan ee soo gaarsiiyay fanaanka iyadoona fanaanka ugu duceysay inuu Ilaahay caafimaad taam ah siiyo 22,000 kun marka waxa la isku raacay reerka caruurta ay ogol yihiin rabaana in India caafimaad ahaan loogu fiiriyo ayaan dhaweyd waa la waday Sacuudiga la geeyay xaramka la dhaxgeeyay Ilaahay baa daawo leh Ilaahay diinkiisa iyo dadaalka intaba kuma qadiyo isna dambi burburis Allah uga dhigo kaalmee kuwan ajr iyo xasanaad Allah idinka siiyo dadaalka Cabdimaalik aad wado Ilaahay intii noo gargaarto ha u gargaaro Ahmed Yusuf Suleyman Home Cable TV